السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان قيادة كحرن جنال كسود وهذا عشر كنا ما أنتوا وحكوس سابسين يعني انترميزو محل ده سيدا اللي وقف إذا يورما يصدق ده انترميزو مركب وقت آخرني يسيدوا عليها با رياك لأن تكون أرتد سيدا وحاجر إري مقرنا دواقيسة أو جرمال سيدا كلا إنجليش وحكون نقنية in between move انترميزو لفتر كده واتلياني marka waxaa laga yaabaa in aad dhawaaqyo badan iyo erayo badan aad ku aragtid isla intermezzo oo hadda intermediate move waa la dhahaa in between move waa la dhahaa marka muhiim ma aha ereyga waxaa muhiim ah inaad conceptiga aad haysatid so waan ku soo saarayaa inta shaashada saad ugu jeedid inta dhawaaq ay leedahay iyo inta ay lagu kala magacaabo same waaye kulligood waa isku wada mid intermezzo waa move aan la filinaynin inaad la imaadid kaas oo qofka kaa soo horjeedo ku qasbaa inuu ka falceliya maxaan ku dhahay intermezzo waa geedi lama filaan ah inaad la imaadid kaasoo saaxiibka cajiib ku noqdo isla markaasna ku qasbo inuu ka falceliyo so marka example koowaad aan bilowno waxaan ka soo bilaabayaa ratingka meesha ugu hooseyso ilaa iyo middle up to advance من waxaan idinka tusayaa laba example aan aragna marka example kan koobaad hadda fiiri balaag wuxuu sameeyay inuu dilo askarigan si uu wuxuu rabaa iskaga qaato bishopkan hadii fardiisa la taabto so maxaa sameyn lahayd position kan oo kale fardii ma iska dileed maadaama askarigu ka qabo hadaa isku dishid adigana wuxuu ka dili doonaa bishopkan kale balse hadii aad fahansan tahay intermezzo waxaad sameynaysaa marka koobaad bishopkan ayaa dilaysaa sorry bishopkan ayaa dilaysaa bishopkan markaad disho waxaa qasab marka in laga falceliyo fardiina weli wuxuu kugu jiraa isla godkii waad dilaysaa example kan kale cadaanka wuxuu dilay askarigii passpunk inoo ahaa so maxaad sameynaysaa maadaama askari lagaa dilay miyaad dilaysaa maxaad sameynaysaa la imow move cajiib ah kaasoo qasab ku ah saaxiibka inuu ka falceliyo queen a1 check why sababtoo ah qalcadan laba ayaad ku weerartay laakiin asagana wuu difaacay maxaad sameyn doontaa still qalcadan waxaad soo xasuustaa tacticada ahayd overloaded oo ah queentan culeys ayaa saaran sababtoo ah fardahan way daaficaysaa sidoo kale qalcadan waa daaficaysaa marka haddii aan qalcadan dilo waxaa qasab ku ah queenta inay disho ilaa queenta laba shaqo iskuma qaban karto fardahan nama daafici kartee so saas waxaan ku helayaa xubin waa gartay basalka marka xogo levelkiisa ayaan kor u qaaday waxaan ka dhigay intermediate midka hore beginner ayuu ahaa midka intermediate kan u dambeeyna advanced ayaan ka dhigayaa okay aan fiirino marka waxa ugu dambeeyo cadaanka sameeyay wuxuu dilay askarigeena yaalay G6 so maxaa sameynaysaa la imow move cajiib ah kaasoo ku qasbaya saaxiibka inuu ka falceliyo maxaa is leedahay intermezzo haddaad baratid oo si fiican aad u adeegsatid all tactics ka dhan haddaad baratid oo si saxan aad u isticmaashid runtii waxay ciyaartaadu ka bedeli doontaa wax badan waadna iska dareemi doontaa tacticada haddaad si fiican u baratid bataniska checkmateska noocyadiisa marka kulligood waan soo wada geliyey insha allah goor dhowna tacticada dee waa dhameeyey wax yar ayaa iga haray markaan dhameeyo insha allah waxaan rajaynayaa haddaad casharadaas si fiican u qaadatid inay wax kaa bedeli doonaan tacticada waa muhiim inaad baratid haddaba isku day ma xalisay moveka la yaabka ah runtii horta shaashadda inaan idiin wada saaraa fiicneed waxaan ciyaarta gudaheed bis ayaan duubayaa waxaan ku jira waa liges basaleska ayaan ku jira wuu leeyahay intermezzo ayaa la dhahaa so life ayaan u xalinayaa aniga waa gartay maxaad samayn lahayd ma xalisay ma isku dayday fardaha ayaa sacrifice lagu sameynayaa oo waxaa laleeyahay check qasab waxaa inuu dilo so askarigan kale haddii aan dilo laakiin fardaha wuu laabtaye aniga hadduu laabto fardahan wax ka gadaalaya fiiriya kuwiintaas haddaan helna maxaan u baahannahayba check kuwiintaan ayaan iska dilaynaa marka aadisdaa good sababtoo fardaheenna oo 3 dhibcood aan bixinay kuwiintii oo qaali aan dilnay oo 9 dhibcood ah waa gartay example kan kale isku day bishopka wuxuu dilay bishopkeeni maxaad samayn doontaa haddii aad dishid askariga ayaa lagaa dili doonaa so maxaad samayn doontaa let's analyze ku samayno
haddaan dilno waa askarigaan dilo askariga aan ku daro gadaal laga istaago askariga ma xaroon doono oo boqorkaan ayaa u imaan doono so maxaad samayn doontaa marka koowaad adoo waxba aanan dilin horta ku dara askarigan sababtoo ah qalcadda waa qasab inay ka falcelisaa sababtoo intermezzo move bilaash ama aha waa in saaxiibka uu ka falceliyaa sababtoo movekan waa move cabsi ah waayo wuxuu rabaa inay askariga inuu wuxuu rabaa noqdo boqorad so markaan dilo bishopkan askarigaygiina waa difaacday askarigan kale waa ku darayaa askartan waa lama joojiyaal okay example kan asagana xogaa yar ayaan levelka kor u qaaday isku day inaad xaliso horta haddaad fahansan tahay example tacticadii kale tactica ka dambeeyo haddii aad kii hore fahansan tahay waxaa kuu fudaanaysa midka kale inaad xalisid yacni maxaan kala jeedaa examplekii haddeedii aan idiin sheegay wuxuu ahaa waxaan idin cashar hore ayaa jiro oo deflection ka hadlayay ama overloading inay xubinta culays saaran tahay kuwiintan hadda fiiro culays ayaa saaran oo waxay haysaa qalcaddan iyo qalcaddan kale laakiin su'aal ayaa laga yaabaa inaad isweydiisid oo qalcaddan tan wuu daafacay waa sax laakiin qalcaddan cid weerarta ma lahan tan keliya ayaa la weeraraa soo kuwiinta culays ma saaran inaa isdhahdaa laga yaabaa balse culayska waxa uu yahay marka hore jag ayaa leedahay so haddaad jag dhahdid kuwiinta marka culays ayaa saaran maanta jag so qalcaddan ayaa iska dilaysaa marka then qalcaddaas kale waxay noqonaysaa free laakiin su'aal ayaa laga yaabaa inaad isweydiisid maadaama kuwiinta ay laba shaqo hayso horta qalcaddaa miyaanan ku hormari karin oo qalcaddaa miyaanan dili karin inaad isdhahdaa laga yaabaa haddaad dishid qalcaddan uu dilo qalcaddan kale ma dili kartid sababtoo ah mar allaala markaa jag dhahdid laba option baa u furan yahay inuu qalcadda kugu celiyo ama inuu kuwiinta dib u soo noqoto marka saasna xubintii aad heli lahayd ama intermezzo kuma guulaysanaysid waa gartay examplekan galay balaaga wuxuu sameeyey wuxuu dilay askariga yaalay h2 si uu haddii aan qalcaddan u dilo askarigan uu dilo dabadeed checkmate uu isaaro balse isku day inaad samayso intermezzo let's analyze ka waran haddii aan dilo qalcaddan horta boqorka ima dili karo boqorka haddii uu dilo askariga aan jack u dhahayaa askariga markaan jack u dhaho ma hor istaagi kara askarigan haddii hor istaago qalcaddan kale ayaa waxaan ku leeyahay jack kuwiin ayaa jack igu soo fuulayso so kuwiinta hadduu ku dilo waxaan dili doonaa qalcaddan si askarigan aan isagana promotion ugu sameeyo so qalcaddaas ayaan dilayaa dabadeed kuwiinta waxaa qasaba inay disho then waxaan dili doonaa qalcaddan kale sababtoo ah askarigan lama joojiyo waaye wuxuu tegi doonaa kuwiin inuu noqdo oo hadda haddaan computer analyze furo wuxuu hor istaagayaa askarigan then waxaan dhihi doonaa ka leexa askariga waa wadi doonaa sababtoo ah qalcaddan kale ma dili karo then waxaan qasaba kuwiinta inuu siisto that's the answer waa gartay madowgu wuxuu sameeyey inuu dib u celiyo fardahan I don't know wuxuu kala jeeday ma wuxuu u socday f5 ama d5 so isku day inaad samaysid movekii cajiibka ah intermezzo inaad samaysid isku day runtii movekan aad u cajiib u yahay aan laftarkayga markaa arkay waa la yaabay marka isku day inaad xaliso intermezzo haddii aad ciyaartaada ku adeegsatid runtii aad ayay ugu yaabin doontaa saaxiibka ma xalisay ma aragtay knight d5 why sababtoo ah kuwiintaana weeraraysaa kuwiintan ayaa weeraraysaa balse adna fardahaada soo ma lagaa dilaayo mar allaale markii uu dili kuwiintan haddii aad dishid kuwiintan soo fardahaada free kama noqonayo no waxaan ku waray intermezzo waxaa qasaba in laga falceliyo waxaad dilaysaa fardahan horta marka koobaad oo meeshaas xubin ayaad ku dilaysaa then kuwiintii lagaa dilay ayaad u soo noqonaysaa that is the answer